دنقرن waxay soo bandhigaysaa wixii u qabsoomay 2 sano wasaaradda amniga maxaa u qabsoomay halkan caawa ay kan aad baan u maasantahay jeete aad iyo aad baan Soomaaliya meel kasta oo joogto u salaamaya caawa waxa weeye xafladii 2 sano guuradii waxqabadkii xukuumadda Danqaran wasaaradda amnigu waxay qabatay wax sheeke iyo lagu gaari kara ma ahan sala socotaan wasaaraddu hay'ado badan baa hoos yimaado hay'adda nabadgelyada muxuu ahaa qaranka Soomaaliya oo aad u malayso muxuu ahaa in ay dalka amnigeeda gacanta ku hayso oo sugtay waxyaalaha ay qabatay wax aad iyo aad u badan weeye maadaama halkan meeshii leefka ay tahay waxa fiicnay inaad noogu timaadaan maxaa la yiraahdaa meeshii aan ku soo bandhigi lahayn waxqabadkii saas leeg booliska Soomaaliya oo ah maxaa la yiraahdaa sugidda amniga gudaha hay'addu u xilsaarneed waxqabadkii ay qabteen ayaduna wax aan la soo koobi karin weeye iyo mashaariicda ay fuliyeen oo 1 iyo 2 3 aan dhihi karin saas leeg hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha oo ogtihiin maxaa la yiraahdaa waxa dalka soo galaya wixii ka baxaya hay'adda gacanta ku haysay iyo waxyaalaha ay qabato ardaylaha ka badan oo aan la soo koobi karin laakiin noo qoran oo maxaa la yiraahdaa meeshaas ku wada qoran min 1 ilaa 2 aan muxuu ahaa tirin doono saas leeg hay'adda maxaa la yiraahdaa koordhiga miinooyinka iyo ashyaada qaraxda seema oo iyadana ah hay'ad u shaqaysay inahaas in ka badan baa muxuu ahaa ay qabteen muxuu ahaa hay'adahaas saas leeg wasaaradda amniga oo iyadana shuruucda gacanta ku haysay oo ugu dambeeyay maanta sharciga booliska oo aan soo gudbinay iyo shuruucaha badan muxuu ahaa hadda ka shaqeynay sharciga nabad sugidda haday ahaan lahayd sharciga maxaa la yiraahdaa hubka sharciga maxaa la yiraahdaa ay sharci oo maxaa la yiraahdaa qaabilsan amniga ma faahfaahin karo aad bay u badan yihiin maxaa la yiraahdaa caawan oo habeen farxadeed weeye laakiin waxaa noo fiican maxaa la yiraahdaa meeshii waa wasiir waa la tagi doonaa laakiin waxaan inaan ku weydiiyo marka aad eegto amniga Soomaaliya meesha uu maraya 2 sano ee la soo dhaafay waxqabadkii idin qorshaysanaa bilowgii muddaxilaadka dawladdan boqolkiiba intee baad is leedahay wasaaradda amniga way u qabsoon wasaaradda amniga boqolkiiba 60 in ka badan baan dhihi karnaa way qabsoontay boqolkiiba 100 dhihi mayno maxaa yeelay dhulka aad la socoto jeetow ee shabaabka laga kiciyey 900 kilomitir noo jiro degmo kasta oo laga kiciyey shabaabka wasaaradda amniga hadday noqon lahayd xasilintii iyo hadday noqon lahayd maxaa la yiraahdaa stationna boolisyadii hadday noqon lahayd immigrationadii hadday noqon lahayd maxaa la yiraahdaa wax walba oo amniga sugahayay bay muxuu ahaa ay ka fulinaysaa saas si leeg dhulalka xuduudaha ah mina baaristi baa ka socotay meelaha shabaabka laga kiciyey oo hay'adda seema ayadana shaqada wadato intaa in la eg hay'adda la yiraahdo maxaa la yiraahdaa muxuu ahaa socdaalka iyo jinsiyadaha waad ogtahay oo hadda ugu dambeysay feerfeer iyo balanballe iyo usbuuci dhow waa laga furahayay maxaa la yiraahdaa muxuu ahaa xarumahoodii meel kasta oo bulshada Soomaaliyeed ee cadawga laga kiciyey wasaaradda amniga iyo hay'adaha kala duwan sida nabad sugidda booliska iyo maxaa la yiraahdaa hay'adda socdaalka iyo hay'addan ku sheegayo oo seema la yiraahdaa ama muxuu ahaa ka hortagga miinooyinka shaqooyin isdaba joog ah oo aan kala harlayn bay wadaan ugu dambeyntii muxuu yahay bartilmaameedkiina amyoolka aad higsanaysaan sanadka soo socda waxaan higsanaynaa insha Allah sidii loo sugi lahaa amniga gudaha dalka Soomaaliya guud ahaan maxaa la yiraahdaa gaar ahaan caasimadda haatan aan joogno magaalo madaxda ah oo aad la socoto maxaa la yiraahdaa amnigeedu in ay gacanta ku hayaan ciidamada booliska ciidanka nabad sugidda iyo ciidanka xasilinta inaan wax ka qabanno guud ahaan dalka Soomaaliya in aan xasilino insha Allah ta'ala rajaynaa aad baad u mahadsantahay wasiirka wasaaradda amniga gudaha ayuu ahaa xukuumadda federaalka Soomaaliya General Fartaag oo dabcan si toos ah